السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan oo wacan dhammaan asxaabta nagu xiran haday ahaan leed Facebooka, TikToka, YouTubeka, Instagramka dhammaan waad mahadsantihiin. Caaw ay tahay taariikhdu 23 December 2021 xilli damana ay tahay waxaan barnaamijkeena ku faahfaahin doonaa wargalabta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay iyo wasiiradda caafimaadka ay ku faahfaahisay kuna nuuxnuuxsatay xaalado kala duwan oo dalka warbixin ka bixisay aan ugu horeysiinay waxay wasiiradu ku dhawaajisay in xaaladaha COVID-19 aysan ahayn wali mid la dhayalsan karo sidoo kale waxay wasiiradu ka dhawaajisay in kaysas cusub ay jiraan oo la xiriira cudurka Omicron hadda soo kordhay waxay wasiiradu sheegtay dadka ka weyn da'da 50 sano iyo dadka qaba xanuunada gaarka ah in ay si gaar ah taxadar u lahaadaan mar walba una dhagan nugladaan fariimaha caafimaadka si looga fogaado in xaaladaha COVID-19 ku ay sii siyaadaan hadii boqolkiiba 50 heerka talaalka ay ku talisay ama ku taliyeen ururada caafimaadku si sax ah loo maro ama loo wajaho waxay taasi horseedaysaa in xanuunku uu hoos u dhaco waa hadaladii galabta ay ka dhawaajisay wasiiradda caafimaadku wasiiradda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday marxaladihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xanuunka COVID-19 iyo xanuunka Omicron ee dalka wasiiradda ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsatay sheegtayna in talaalka hadda la isku dari karo iyadoo wax dhibaato ah ama mushkilad ah aysan qofka u keenay wasiiradda ayaana sidoo kale kula talisay dhammaan bulshada qaybahooda kala duwan in ay si dhab ah u qaataan talooyinka caafimaadka ee hay'adaha ama ururada caafimaadku soo jeedinayaan oo ay kamid tahay in faraha saabuun lagu dhaqdo in la isticmaalo face maskiga ama waji xirka iyo sidoo kale in social distancing ama kala fogaanshaha aad loogu dadaalo iyadoo sidoo kale shaacisay in kiisaska Omicron variant ay gaareen 73 case kuwaas oo intooda badan ka soo gudbay xuduudaha uu dalku leeyahay wadamada dadka xanuunkan laga helay ay ka kala yimaadeen waxay ku sheegtay wasiiradu sida Kenya oo kale United Arab Emirates ama Imaaraadka sida u taqaan South Sudan DRC ama Democratic Republic of Congo Nigeria iyo UK waxay sidoo kale wasiiradu ku nuuxnuuxsatay iyadoo waliba tafaasiil dheeraad ah ka bixisay kaysaska guud ee coronavirus-ka 138,888 waa kaysaska guud dhimashada ayaa ah 3,247 sidoo kale recovery-ga ama dadka ka kacay ama laga daaweeyay ayaa ah 8,927 qof waxay sidoo kale wasiiradda caafimaadku carabka ku adkaysay in wixii loo gaaro bisha Janaayo 2022 in dhammaan goobaha bulshadu ku kulanto sida goobaha cibaadada masaajidda kaniisadaha sidoo kale goobaha waxbarasho sida jaamacadaha iyo iskuulada iyo dhammaan hospitaalada inaynan aqbalin in qof aan haysan talaal ama shahaadadii talaalka aan wadan inuunan gudaha u gali karin aynan ka aqbalin taasna way ku dartay wasiiradu marka ka Soomaali community ahaan dhammaan inta afka aan ku hadlayo ama luqadda aan ku hadlayo fahmaysa Soomaalida waxaan u rajaynayaa insha Allah in ay talaalka qaadan doonaan dabcan awaamirta dawladana loo hogaansami doono maadaama kugu adkaan doonto dhammaan goobihii hawlaha kaaga xirnaayeen ama danuhu kaaga xirnaayeen ay noqon doonto in laga soo celiyo oo dabcan ay xanibaad kugu noqon doonto biri marka inta aan la isla gaarin inta ka dhiman sanadka ku dadaalaan bulshadu in ay qaataan talaalka cidii aan qaadan marka sida wasiiradda hadalkeedaba ka muuqda dabcan aad bay uga adkaanaysaa qof aan talaalnayn in uu goobaha bulshadu isugu timaado uu ka soo adeegto ama dano marka uu lahaa uu ka soo fushado waxaan uga jeedaa haduunan haysan kaarka caafimaadka ee muujinaya inuu talaalan yahay waxa naga codsi ah hadii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato dhammaan page-ka kala duwan ee ku leenahay social media waxa naga codsi ah inaad soo follow garayso YouTube-ka aad soo subscribe garayso si aad noola socoto mar walba waxaan sidoo kale naga xasuusin ah inaad video-ga share garayso si uu gaaro Soomaali badan waa aniga walaalkiin Saacid Xaaji Aadana oo idin la inta naga dhimatay Allah subhanahu wa ta'ala naxariistii jannaha siiyo inta naga xanuunsanna Allah waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad sariic siiyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh